طبعا maanta oo ay tahay 8 Maarso maalinta caalamiga ah ee haweenka annagana aan u dabaal degno maalinka haweenka Soomaaliyeed waa maalin dabcan markastoo xasuusiso qiimaha iyo dulqaadka iyo kartida gabdhaha Soomaaliyeed ay u leeyihiin iyo guulaha waaweyn ay ka gaareen dhammaan maxal laha mujtamaca hadii ahaan lahayd siyaasiyan hadii ahaan lahayd arrimo bulsho ahaan iyo sidoo kale saraakiisha iyo saraakiil xigeenka gabdhaha ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa maalin xasuusinayso oo si gaar ah inaan ugu dabaal degnay taadaban aan rabaa inaan ku hadlayo magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin aan u diro guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qaybta ka ah difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed inaan hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin halkaan uga diro gabdhaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan kaliya ciidanka ka tirsan ahaan ulama joogan laakiin waxay u yihiin laf dhabarka sidii bulshada laf dhabarka ugu yihiin ciidankana laf dhabar ugu yihiin markasta waxay garab taagan yihiin walaalahood dhalinyarada wiilasha Soomaaliyeed hiilay u yihiin garabay u yihiin niyaday u dhisaan wayna ka garab dagaalamaan annagoo og waliba inay duruufo adag ku nool yihiin marxaladdu dalka maraayo haddana sida duruufaha dalka ka jiro ayadoo jiraan ay guriga gacanta ugu hayaan annagana waxaan dhaanayaa gacanta noogu hayaan haday gabdhaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa dhammaan dabcan inaan si qalbi ah oo niyad ay ku jirto inaan ugu hambaleeyo inaan u bogaadiyo insha Allah waxaan rajaynaynaa gaar ahaan aniga shakhsiyan inaan garab badan siin doono ciidanka intay ku jiraan waqtigan joogan inay gabdho badan ciidanka soo biiraan rajaynaa haduu Ilaahay idmo kuwa hadda joogana ay horumar badan ay ka gaaraan insha Allah sida hadda la sheegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed urur dhan oo commando saajiri jiray oo waliba dagaalada ka qayb qaatay haddana waxaan rabnaa dabcan gabar madax hoggaan waa noo joogtahay iyo gabar agaasime ah waxaan rabnaa gabdho badan oo taliyo urur iyo taliyo guutooyin ah inaan soo saarnaa diilaad insha Allah taliyo urur iyo taliyo guuto inay soo baxaan waqtiga ugu dhow insha Allah mar kale waa in hambalyeena guuleysta guul iyo go'nimo ay rajeynaa insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.